wiilashii iyo gabdhihii jaamacadaha ka soo baxay ama kuwii dalka ka baxay ama dibadiisa ka soo baxay shaqo ma hayaan shirar baa la sameynaya anigu hadda habar baan ahayo meelahaas baan marmarayo shaqaan qabtaa waxa weeye waa la shirayaa ayagoo konton 20 ah war wadanka waa waxbaan soo baranay dhalinyaraan nahay waxa weeye dal iyo dibadba waa ka nimid wax shaqo ma hayno odayaal iyo habraha shaqeynaya horta waxa laga tagay kelmadda dhalinyarada dhibaatada ugu weyn oo magaalada Gaalkacyo hadda Garowe waa tagaa anigu Boosaaso waa tagay gobolada Puntland waa tagay Qardho waxa weeye intaba waan tagay boqolkiiba 50 ama boqolkiiba 40 bay dhalinyaradu shaqeynaysaa hal abuurkii iyo shaqadii iyo maskaxdii iyo fikradiina dhalinyarada wax baratay baa haysa marka dhibaatada imaanaysa waxay tahay in ay dhalinyaradu boqolkii 80 keento shaqada boqolkii 80 gabdhaha iyo wiilasha wax bartay ee kaalinta galaya ee adduunka wax ka daranaya ee aan qabiilku ku jirin qabiil kuma jiro qof arday qabiil kuma jiro qarannimo ku jirta qof kasto arday walaalkii waa rabaa nin kasto yahay qofka ardayga annagu hadda caafimaad baan nahay qof kasto oo Soomaaliya waa rabnaa fiiri qofka caafimaadka qof kasto oo ashahaato waa rabaa wuu rabaa qofka ardayga ee aqoonta leh ee waxbarashada soo maray ee la soo tumay ee soo dabcay ee aqoonta celinayso wuxuu doonayaa inuu walaalkiis garabsado oo muslim ah inuu gacanta qabto inuu shaqeeyo ayadoo dagaal lagu jiro qofka ardayga anaga caruurteena hadda habar baanay markaan xanaaqo ilmahayga ay dajiya hooyo maxaa ku hadlaysaa maxaa sheegaysaa darid sheeleeda marka qofka ardayga ah asagay maskaxdu ku hadhay asagay dadnimadu ku jirtaa inagu hadda inteena saan u badanahay boqolkii 90 waa gabownay dhalinyarada waxa ku jira maskax fayow aqoon fayow iyo garasho xishood leh marka waxa la rabaa dadka dhalinyarada oo aqoonta leh oo jaamacadaha ka soo baxay kuwa hadda jooga in la shaqo galiyo oo dhalinyarada hal abuur loo sameeyo gabar walba gabadhay gacanta qabanaysa wiilkuna wiilku gacanta qabanaya way shirayaan shaqaynu helay mas'uuliyad baan helay hadda walaalayaal taa lagu daro idinka mas'uuliyiin anigu waxaan soo jeediyay dhalinyarada hal abuur shaqo waxa jirta arin ajaa'ib ah oo mudug ka socota wadanka kale aysan la qabin maanta mudug ka bilaabatay marka waxa qurux badan dhalinyarada wiilal iyo gabdhaba in la shaqaaleeyo maskax fayow bay hayaan aqoon fayowna waa hayaan